بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale shabakada Atoobiya cashirkeeni labaad ee fannu tacaamuli maca al-atfaal. Waxaynu doonaynaa inaan kusoo gudbino talooyin iyo tusaalooyin aad u qiimo badan oo ku saabsan xirfadaha iyo aqoonta ay muhiimka tahay in qof kasta ee murabbi ah uu lahaado si markaa uu soo saaro caruur aad u wanaagsan oo tarbiyad ahaan dhammaystiran oo markaa iimaan ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaanba dhammaystiran, sidoo kalena aadaab leh ixtiraam badan. runtii caruurteena waa amalkeena iyo rajadeena, sidan ayaga ka dhigna ayaan mustaqbalkeena u olaan doonaa haddii aynu ku dadaalno markaa tarbiyadooda iyo dhisidda shakhsiyadooda oo aynu soo saarno ilmo wanaagsan oo hanan kara, hogaamin kara, isla markaana u khidmayn kara dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. waxaa inoo iftiimaya markaa mustaqbal wanaagsan haddii se aynu dayacno oo aan iska ihmaalino ama aanan tarbiyad dhammaystiran siin, iyadoo aan ognahay in haddana environmentiga uu saameyn xun ku leeyahay ilmihii. dee ilmo wanaagsan nooma soo bixi doonaan, waxay soo bixi doonaan gaangis iyo mooryaan iyo balaayo musuq badan iyo ummad wada fowdo ah, waana dee runtii halaag mustaqbal oo runtii inagu aan gacanteena ku kasbanayno. idan the best investment aynu mustaqbalkeena ku maalgashanayo waa inaan soo saarno dhal wanaagsan oo mustaqbalkan hogaamin kara. cashirka horreeyay waxaynu kusoo sheegnay in maadaama dhammaanteen aynu wada doonayno inaynu helno ilmo wanaagsan ay muhiim tahay oo laga maarmaan tahay inaan la nimaadno asbaabtii aan ku heli lahayn ilmaha wanaagsan aynu doonayno, oo ah inaan siino tarbiyad wanaagsan oo dhammaystiran. sidoo kale waxaynu soo sheegnay in maadaama environmentigu isbedelay oo environmentigu uu ka socdo saameyn aad u xun ilmihii markaa aad u saameynaya oo 10 sano ka hor sidii uu ahaa environmentigu uusan ahayn, ay laga maarmaan tahay in qofkii xilligan hadda environmentigan wax ku tarbiyeynaya inuu markaa uu ka saameyn badan yahay environmentiga iyo waxa ka socda. inagoo markaa tusaale usoo qaadanay in qofkii doonaya inuu haramcad markaa ugaar ka rito uu waajib ku tahay inuu isagu haramcadka ka orod dheereeyo, taasoo macnaheedu ay tahay qofkii environmentigan liita ee hadda fisqiga iyo fasaadka aad u badan uu ka socdo raba inuu ilmo ku tarbiyeeyo dhexdiisa, dee ay laga maarmaan tahay inuu markaa isagu uu faasiqa iyo faasidka uu ka saameyn badan yahay. inagoo markaa intaa xasuusano, waxaan rabnaa cashirkaana inaan ku qaadano 4 qodob oo muhiim ah oo ay laga maarmaan tahay inaan ogaano, oo culamaa u tarbiya ay dhahaan qof aan 4 qodob ogeyn ama aan aqoon u lahayn ilmo ma tarbiyeyn karo. waxay ku sheegaan 4 sheeg ee tarbiyada ay ku socoto, haddii hal sheeg oo ka mid ah ama 4 qodob mid ka mid la waayana tarbiyaba aysan jirayn. qodobka ugu horeeya ay muhiimka tahay inaynu ogaano waa ma xukmu tarbiya. tarbiyada xukunkeedu muxuu yahay? waajib miya, sunno miya, mubaax miya, muxuu yahay? maxaa inaga saaran caruurteena? التربية الأبناء فرض على الوالدين. عرورت إن لا تربية وواجب صار لبذ والد، ما أها السنة ما أها المباح. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لذلك إلهي رسولك سرمي إيمانك له إهل كينا ينففيال كينا نار كإلالي إلهي وحينكو أمر إن إهل كينا ينففيال كينا نار كإلالي. وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب ما لم يسرفه سارف بين علماء. أمر كستي قرآن كسو أرى الواجب أيو كان هدي مركا وحكي اللي واجب لماذا يسنجر سادرتيد إلهي وحنا أمري ونقو واجب يالي إن إهل كينا إن ففيال كينا نار كإلالي إهل كان عرور أياك عرورتين أياك ميدا إن سيدان أوغا إلالين كرنا علماء وحكو معنيان إذنكو برتا أو رقم وحي أدنار إساق إلالين لهيدين إهل كينا نبرا أو كتا أديبي وحي نار إساق إلالين لهايين. سادرت عرورتا إنا ينتربينا وواجب، laakiin aan dhalnahay waajib ma sidaan horeba u soo sheegnay inaan inta guursano ilmo dhalnahay waajib ma waa sunno, taas inta badan inaga inala weyn, laakiin waajib ma waa sunno. aakhirana loo soo istaaji doona maxaad ilmo u dhal weyseen, laakiin waa naloo soo istaaji doona ilmahan aad dhashay maxaa u tarbiyin weyse oo maaragtaan ila mas'uul baad ka tahay. qof kastana mas'uuliyadii loo igmaday ee la raaciyay waa la weydiin doonaa. kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can raciyatihi wa nabiga alayhi salaatu wasalaam والرجل مسؤول في أهله وهو مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سادرتيد نلما وينديد دونا محا علم أولى ويسن، لكن أنا وينديد دونا إن علمها الشيء محا تربيين ويسن. تربية مركا واجب هدان قدرنا نلقى ثواب سيدنا هدان كتك نروح عقاب دونا، والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. واجب وحكا صادلتي ما ضل لقى ثواب سيدنا هدان مركا كتك تنا لقوا عقاب دونا وسيد الصلاة بأيتها. الصلاة سيدي واجب تهي تربية واجب ليس الفرق بين أن نصلي الصلاة وأن ربي أبناءنا. إن الصلاة كانوا هنا عرورتنا تربية وح فرق يقول حي مال هذه لفير إنك واجب نبذ صلاتنا إله بأن أمري وواجب ونيري أقيم الصلاة. سيدو كلا تربيتنا إله بأن أمري وواجب ونيري إله بأن يري قوة أنفسكم وأهليكم نار. سادرتي سيد الصلاة أي واجب الطاي تربيتنا واجب الطاي. قضب كاسنا أوجانا ومهم سببته هدي أين أوجانا دي جودشري سينكود ذلك ما دام واجبها. qodobka labaad inaynu ogaano ee muhiimka tahay at-tarbiyatu cilmun yaxtaaju ila diraasa. tarbiyadu waa cilmi in la barto u baahan. bimujarrad inaad aabba tahay ama aad hooyo tahay
inaad waalid noqoto kama dhigna inaad murabbi tahay. murabbinimada xirfado iyo aqoon gaar ah u baahan tahay. qofka inuu macallim yani iskuul inuu ka qalin jabiyo ama jaamacad ka qalin jabiyo kama dhigna inuu macallim yahay. macallimnimadu waxay u baahan tahay xirfado iyo teacher skills, xirfado iyo dhaqan gaar ah qofku u baahan yahay si uu macallim u noqdo. murabbi inaad noqoto waxay kaaga xiran tahay inaad tahay qof aqoontii iyo xirfadihii loo baahnaa leh. sidaa darteed tarbiyadu waa cilmi in la barto u baahan, laysad waraasatan, wax la kala dhaxlana ma aha oo sidii hooyo iisoo tarbiyayaan aqaano hooyo iyo aabe oo ana sidii baan ana ilmaha u tarbiyanaya, sidaasina sax ma. hooyo iyo aabe waxay kugu soo tarbiyeen ayaga gaar u ahayd, ama sax ha ahaato ama khalad ha ahaato. wixii ay ahayd adiga waxaa laga rabaa maanta inaad wixii saxnayna sii siyaadiso, wixii khaldanayna intaad fahamto oo saameynta ilmaha ku lahaan karaan aad fahamto, aad ka saarto, wixii maaragtay saxnayna aad sii siyaadiso. haddii ka waran hooyo iyo aabe intii ay yaqiineen ay ka aqoon badnaa lahaayeen markay ku tarbiyanayeen, dee adiguna qofkaad maanta taa waad ka fiicnaan lahayd, qof kasii wanaagsan heerka aad maanta taad ahaan lahayd, ka caqli badan, ka fikir wanaagsan, ka aragti fog baad ahaan lahayd. si la mid ah adigana ilmahaaga ha ku tarbiyaynin intii uun hooyo iyo aabe aad ka soo aragto. waa inaad siyaadisaa ood wixii akhdaa ah, مثلا waxaa laga yaabaa hooyo iyo aabe inay kusoo uleyn jireen ama kusoo caayi jireen ama kusoo canaan jireen iyagoon markaa iyagu aan wax weyn aysan la ahayn ama aysan fahamsanin. adiga maanta waa inaad fahamtaa saameynta ay ku leedahay caayida ama canaanta ama ushu ilmaha saameynta ay ku leedahay. qofka ma fahmi karo qofka uu rabo inuu soo saaro haddii uusan aqoon sideen u soo saara, istaraatiijiyada aan isticmaalay maxay tahay. tusaale haddaan soo qaato qof sociable ina soo saarta rabtaa bulshay ah, yani wiil ama gabar bulshay oo bulshadu jeceshahay oo dulqaad bulshada kula falgalo leh dadku wada jecelina soo saarta rabtaa. adiga kuma muuqan karto istaraatiijiyad 2 2 iyo 3 aan yani isticmaalo si aan qofka u soo saaro. laakiin dadka ahlul ikhtisaaska haddii aad u tagto waxay ku dhihi karaan talooyin bay ku siinayaan. talooyinka ku siinayaan waxa ugu horeysa wiilkaagu inuu bulshay ku noqdo ma rabtaa, nadaafadiisa ku dadaal. imagine yani cilaaqaadka ka dhaxayn karo inaga noo muuqan kara maxay tahay, yani nadaafad iyo bulshaynimo. يعني nadaafaduna waa wax jirkii iyo ku tacalluqday dharkii, bulshaynimaduna wax aqligii iyo ku tacalluqday qalbigii. wax marka cilaaqaad ka dhaxayn kara nooma muuqato. laakiin simply hadii loo macnay waxay noqonaysaa qofka canugan hadduu nadaafadiisu ay markaas iska carfaayo, nadiif iska yahay, qof kasta ee soo wareega ee guriga kamid ah ama ka baxsan muxuu ku sameynaya, uu xambaaranaya, uu qaadanaya, dhabtuu saaraya, macuu siinaya. meesha waxa ka dhalanaya marka cilaaqaad wanaagsan. ilmihii inay bulshadii qof kasta oo marka ay ama wajigiisa yaqaanaan ama aysan aqoonba inay jeclaadaan, inay deriskii qof inta badan dadka deriska u yimaada iyo qaraabada iyo inay jeclaadaan qof kasta. suurtagal maaha qofkii shalay inta adoo yar ku qaaday oo dhabta ku saaray ku shumiyay inaad markaa aad tuuriyayso markii aad weynaad. suurtagal maaha, bal sanaandad kala hortagaysa assalaamu calaykum. waxa halkaasi ka soo bilaabatay cilaaqaadkii wanaagsan ee ilmaha ay soo barteen intay yaraayeen oo ka timaaday iyaduna nadaafadii aad u gasho. waa day one example. steps badan baa loo maraa qofka inuu bulshay noqdo, laakiin hal example oo kamid ah yani aqoontaasi qofku waa inuu aqoon u leeyahay waxaan sideen u soo saaraa. dadka ahlul ikhtisaaskaana lagu laabta. idan waa inaan anagoo maaragtay ka baranayna meelaha laga heli karo markaas fannigan. kolley waa jaamacadaha lagu daraaseeyaa oo cilmi ahaan jaamacadaha lagu barta, inkastoo aanan arag Soomaali jaamacada lagu barto, haddana waa yani jaamacadaha caalamka waa lagu bartaa asagoo la yiraahdo waxa la yiraahdaa cilmi nafsi wa tarbiya. sidaa darteed meelaha ugu fududan ka heli karno inaan buugaagta laga qoray aan akhrisano, muxaadaraadka noocan oo kale iyo dowlaadka noocan aan ka faa'iideysano. culimadana Soomaaliyeed qaar baa muxaadarin ka jeediya. siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan baranaaba nagu filan. siirada nabiga wada tarbiya socoto. marka insha Allah taala cilmigaas barashadiisu waa laga maarmaan, waana dee tiir kamid ah tiirarka tarbiyada. haddii la waayo oo aqoon ahaan aan tarbiyada qofka aqoon uusan u lahayn oo wuxuu ilmihiisa ku sameynaya masaxa ama khalad aysan u kala saarnayn, waxa soo bixi doona dee qof waxaad adiga tarbiyad u maleynaysaa ilmihii waxa la u noqon doona iska celiyo kale. waxaan sheeko ku maqlay dee nina wuxuu canugiisa ku tarbiyeyn jiray iska celi, qofkaana soo kaaga adkaan kara tuuriyay ma soo daqar, yani ana baxay waxa la leeyahay wixii aad keentay iska celi yaan laga adkaan intii waxay gashay canugii kama dambeysay markuu weynaadeen xabsi daayin lagu xukumo. xabsigii qofka si ugu maaragtaan timaada waxay tiraahdaa ka waran yani wuxuu ku yiraahdaa yani qofka soo xabsiga ugu timaada waxaan maqlo waxaan ugu nacbahay wixii aabbahay dhihi jiray iska celidi waxa saan iga dhigtana waa iyadii. marka waxaad laga yaabaa adiga inay sax kula tahay ilmihii waxa laga noloshiisa oo dhan burburiso. qodobka saddexaad ee muhiimka tahay inaan ogaano at-tarbiyatu sabrun. tarbiyadu waa sabr iyo dulqaad.
dadaalka iyo tawjiihaadka aad ilmaha ku bixinayso aad rabto inaad ku bedesho waxaa laga yaabaa 5 sano 6 sano 10 sano ilaa 20 sano aysan ka soo daahir laakiin ilmuhu ma ahan weel dabada ka duleelo oo waxaad ku shubayso oo dhanba sii daynaya ilmuhu waa bini aadam waxa aad ku shubaydo maskaxdaad programinayso waa ku programsanta maalinteedii ku soo dixi doonta adiga laga rabo inaad dulqaadato dulqaad way tarbiyadu dulqaad iska dhaaf bini aadame geedaha muddo la sugaa yacni cambe inaan gurto inaan cambe macaan cuno waxay iga xiran tahay inaan inta marka hore abuuro aan 10 sano ku dhawaad sugo intaasoo sano aan dadaal iyo cinaayo joogta aan ku hay marka tarbiyadu waa sabir iyo dulqaad qodobka afraad u dambeeya tarbiyatul abnaa muhiimatun taxtaaju ila macuunatiha tarbiyada caruurtu waa shaqo in ilaahay kugu kaalmeeyo aanad uga maarmaysaa darteed inaad si joogta ilaahay u bariso oo waqti kasta aad ilaahay weydiisato ilmaha aad rabto nooca aad rabto in ilmaha ku noqdaan ilmaha aad rabto inaad ilaahay weydiisato waqti kasta ayaa maaragtaan laga maarmaan ah imagine hooyo ama aabe habeen kasta salaatul leil u taagan oo habeen kasta ilaahay u baryaya ilmahooda oo habeen kasta raba in ilaahay weydiisana ilmahooda ilaahay u hanuuniyo ilaahay u hagaajiyo ducadooda in ilaahay aqbalayo u badan tahay waqti kasta oo aad aragto ilmahaaga wax u wanaagsan ilaahay u bariso tira ilaahu sidaan ilmihii iga dhig markasta oo aragto qof wanaagsan oo sheekh ama saalixa inaad ilaahay weydiisato tira ilaahu kuwaan oo kale iga dhig ninba waxa la yiraahdaa waxa la oran jiray maxamed ibn maxamed qarnigii 5aad ayuu maaragtaan noolaa marka waxa la yiraahdaa ninkaasi markii uu arko nin sheekh oo faqiih ah oo maaragtaan ay fahamka cilmiga ka gaarin oo mufti noqdo wax kasta mas'alo kasta la weydiiyo hadii warku wuxuu yiraahdaa ilaahu kan oo kale wiil ah isii oo kan oo kale ilaahu wiilkayga kan oo kale ka dhig markuu arko nin waaci ah oo wacdigiisa qof kastaba ku taasirayso qof kasta bedeli kara markii uu arkan wuxuu dhihi jiray ilaahu wiilkayga kan oo kale iga dhig yaani wiil kan oo kale ilaahu isii marka ilmihiisii ninkaasoo intooba ilmihiisa iyagoo da'yar buu iska dhintay laakiin ducadiisii ilmihii way ku soo dhaxday waxay noqdeen يعني نمن تاريخ الإسلام علمي iyo aqoontoodii ay baac يعني baalal dahab ay uga qorta ay noqdeen oo rag aan naqaan uga noqdeen ilmihiisii Imam al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam ayuu ahaa wiilkiisa koobadiilkiisa labaadna Ahmed ibn Muhammad Abu al-Futuh ayuu ahaa ducadiisii ayaa ku soo dhaxday ilmahaas oo Abu Hamid al-Ghazali faqih filosofa usuuli buu ahaa ودي يعني حتى اللي يراهدوا مجدد الدين في القرن الخامس ويلك لهذا أحمد نوحو هاي sidoo kale isagana waaci ah oo qofkii uu wacdiyaba isbedelaysa حتى waxa la yiraahdaa Imam al-Ghazali inuu noqdo suufi zaahid oo adduunyo dhan ka zaahid asaas uu ahaa oo wiilka waxa la yiraahdaa wacdi marka sidaas ilmaha ducada ay mar uu anfacaysa ducada ilaahay ilmaha hortaaganta habeen kasta ilmaha way ku soo dhixi doontaa hadii ilaahay qadaro marka casharka intaas ku soo koobay hadii ilaahay qadaro وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته